dagaalka ka socda gobolka waqooyi ee dhanka Itoobiya ayaa galay maalmihii ugu dambeeyay iyadoo ciidamada dawladda federaalka Itoobiya ay kaabiga u saaran yihiin caasimadda Maqale ee xarunta Tigreega halkaasi oo xarunta ugu weyn ee waqtigan laga maamulayo howlaha Tigreega iyo waliba dagaalada ka socda gobolka waqooyi ee Tigreega ay kula jiraan ciidamada dawladda federaalka Itoobiya labadii maalmood ee ugu dambeeyay waxa gacanta Tigreega ka baxay magaalooyin fara badan oo dhanka dhaca jihada galbeed jihada koonfureed iyo jihada bari magaalooyin Kirara Kirkir Shirara Shire Ahum Xumayra Askum Alamata Ahum iyo sidoo kale Cadwa ayaa gacantooda ka baxay magaalada kaliya ciidanka niyada u dhistay isla markaana Abiy Ahmed ku riixday hanka guusha ayaa waxay tahay magaalada muhiimka ciidamada xoog ay gacanta ku dhigeen iyadoona taasi magaalada suuqarka u saaran caasimadda gobolka Tigray ee Maqalla magaalada istiraatiijiga ee muhiimka ee waqtigan kulaalasa caasimadda Maqalla ee magaceeda la yiraahdo Adirgata una jirta masaafo dhan 116 kiiloomitir u jirta caasimadda Maqalla ee gobolka Tigray iyadoo ciidamadu waqtigan sheegeen inay qaadayaan guluf xoog leh ciidamada ayaa gabi ahaanba ka soo gudbay dhulka buuraleyda ay markii hore kala kulmeen iska caabin xoog loo Tigreegu ay halkaasi ciidanka iskaga caabiyeen inkastoo ciidanka uu gaaray jab xoog leh lagana furtay hub hase ahaatee ciidamada iskaashanaya jihooyinka bariga koonfurta iyo galbeedka ayaa ka gulgaaray inay magaalooyin badan oo 10 ku dhow ay gacantooda ka saaraan Tigreega ayaa dib u sii guranaya iyadoona muuqdi waqtigan in gabaabsi uu yahay xogaha la helayay ciidamada cirka dawladda federaalka Itoobiya ayaa laba habeen ka hor waxa uu sheegay inay beegsadeen goob muhiim ah oo 5 kiiloomitir hoosta qoday oo Tigreegu ay ku kaysanayeen gantaalada ritada dheer ay ku duqeynayeen magaalooyinka Bahradar iyo sidoo kale Gondar iyo caasimadda dalka Eritrea ee Asmara madaxda Tigreega ayaa waxay waqtigan caalamka ka codsanayaan wada hadal in la furo iyo sidoo kale waliba in dawladda lagu cambaareeyo inay ka geysatay deegaanada gobolka waqooyi ee Tigreeg gumaad iyo waliba sidoo kale barakicin falsi gabihaanba Dr. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa ka dhagaadayay wada hadallada ay soo jeedinayaan ururada caalamiga ee dhanka nabadda dawladaha waaweyn ee Mareykanku ka mid yahay iyo sidoo kale waliba ururka qaramada midoobay hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa gabi ahaanba iyo waliba midowga Afrika oo arintaasi guud u saaray Abiy ayaa waxa uu muuqata waqtigan hanka guusha isagoona ku guuleystay inay ciidamadiisu ay jabiyaan isla markaana gabi ahaanba jiraan difaacyada muhiimka iyo buuraleyda waaweyn ee gobolka Tigray waqtigan ku xareereysna isla markaana laga difaacay caasimadda Maqalla ee xarunta Tigreega qaynta dhanka cirka ee diyaaradaha militariga ciidamada xoogga dalka Itoobiya ay fulinayaan ayaa gabi ahaanba dhakada laga garaacay taasoo u sahashay in Tigreegu waqtigan u adkeysan waayaan maraafiicda dhakada kaga soo daadanaysa iyo waliba kuwa dhulka lagaga ganayo Tigray ayaa waqtigan waxaad moodaa inay soo wajahday guuldaradii ugu sareysay maadaama caasimadoodii xarunta u ahayd ee Maqalla ay ku mitidayeen gabi ahaanba difaacyadii laga ilaalinayay la soo jabiyay ciidamada ayaa waqtigan waxay noqday kuwo isla jaan qaada kadib markii ciidamadu waqtiyada ay qabanayeen magaalooyinka ay ka mid yihiin Alamata Ahum iyo waliba sidoo kale Shirara Shire ay la kulmeen ciidamadu inay kala go'aan isla markaana Tigreegu ay kala dhex galeen taasoo khatar gelisay dadaalka ciidamadu ay doonayaan inay ku qabsadaan ayna ku gaaraan bartilmaameedkoodu yahay xarunta Maqalla kadib markii dhabar jabin iyo waliba sidoo kale bambooyinka dhulka lagu aaso loo adeegsaday ciidamada iyo waliba sidoo kale buuraleyda waaweyn wadooyinka dhexmara ee gobolka Tigray ay kala kulmeen guluf colaadeed iyo waliba difaac ciidamada daacadda ah jamhadda TPLF ee ka dagaalamaya waqooyiga dalka Itoobiya waxa gabaabsi sii galay isla markaana sii damaya xogaha dhabta ee gobolkaasi laga helayo warbaahinta dawladda federaalka Itoobiya ee xarunteedu ay tahay Addis Ababa ayaa waqtigan waxay soo tabinaysaa xogaha guusha ee gaadhay iyo waliba sidoo kale xogaha guuldarrada ee soo gaadhay ismaamulka TPLF ee Tigreega madaxda Tigreega ayaa waqtigan waxay gabi ahaanba waayeen xiriirka la lahaayeen dhanka caalamka ee isgaarsiinta maadaama gobolkaasi guud ahaanba laga jaray isgaarsiinta xagga internetka iyo waliba sidoo kale dhanka telefoonada dhanka kale waxa gabaabsi ah adeegyada bulshada sida caafimaadka cuntada iyo waliba sidoo kale biyaha iyo waliba sidoo kale nolosha dadka oo waqtigan sii galasa gooda boqolaal ka tirsan shacabka Tigray ayaa ka qaxay goboladaasi iyagoona u qaxay dhanka xuduudda dalka Suudaan halka kuwa kalena ay waqtiga ku sii adkeysanayaan inay maraafiicda wehel ka dhigtaan maadaama kuwii ka horeeyay ee u qaxay dhanka xuduudda Suudaan ayna waqtigan iyagu qudhoodo ay nolol fiican haysan
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Itoobiya ayaa la sheegay inuu aqbalay wadahadal ula yeesho TPLF taasoo ku horseedaysa calaamadna u noqonaysa inay TPLF ka guuleysatay isla markaana uu mari waayay difaacyada adag ee buuraleyda TPLF ay ku dhumalaysanayaan isla markaana ciidanka ay ku horjoogaan ay ka difaacayaan Maqalla balse wararka sheegaya in Abiy Ahmed uu gabi ahaanba ku gacan sayray wadahadaladaasi waqti hanka guusha iyo bartilmaameedkii uu doonayay ay u muuqato caasimadda Maqalla ayaa karaarka loo saaray yahay ciidamada ayaa isku inay gacanta ku dhigaan maalmaha inagu soo wajahan xarunta caasimada Tigreega ee Maqalla diyaaradaha militariga ayaa si loo jibaaraya gabi ahaanba duqeynta ay ku hayaan magaca caasimada Maqalla iyagoona beegsanaya ooba kasto ay isleeyihiin waqtigan waxa ku dhuman ismaamulka TPLF waxaana moodaa ciidamadu inay helayaan cisir doon oo ka caawinaysa dhanka gudaha Tigreega isla markaana u soo tabinaysa xogaha waqti lagu bartilmaameysanayo goobaha muhiimka Adrigaad waa magaalo muhiim ah isla markaana barta dhufayska ee laga difaacayay caasimada Maqalla balse gacantooda Tigreega ka bixida ay ka baxday ayaa waxay tahay guul darro weyn oo soo wajahday TPLF dhowr maalmood ka hor ayay markii madaxweynaha TPLF hogaamiye uu sheegay la dagaal ay uga bixeen magaalooyin dhowr ah oo muhiim ah ciidamada dowladda federaalka ayaa gabi ahaanba dhanka xuduudda ee galbeedka ay la leeyihiin dalka Suudaan isku weeray gacantana ku dhigay iyagoo magaalooyin muhiim ah halkaasi ku qabsaday dhanka bariga iyo dhanka koonfurtana waxa ka socda gulufka colaadeed iyadoona ciidamadu ay ku gurguuranayaan isla markaana marba marka ka dambaysa ay si qabow u qabsanayaan magaalooyin dhowr oo muhiim ah Maqalla ayaa waxay waqtigan xarun u tahay isla markaana caasimadu tahay nus milyan qof balse waxa la sheegay waqtiga inay wajahayso caqabadihii ugu darnaa ciidamada ayaa bixinaya digniinta hordhaca ay weerar ay ku qaadaan caasimada Tigray ee caasimada xarunta Tigray ee TPLF ee Maqalla iyadoona Dr. Abiy Ahmed uu ciidamadiisa iyo saraakiishiisa ku dhiirigelinayo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ku jira qudhiisu dhanka dagaalka gaarsiinta iyo waliba sidoo kale baraha bulshada ayaa sii xoojinaya guulaha ciidamadiisu ay gaarayaan isdaba joogga haddii Maqalla gacanta lagu dhigo gabi ahaanba soo afgaay isla markaana la soo afjaray xoogagii TPLF ee ku noqday lafta dhuunta gashay dowladda federaalka ee waqtigan hogaamiyo Dr. Abiy Ahmed ayaa siyaasadda gobolka Geeska Afrika gaar ahaan kuwa bariga Afrika waxa uu ka leeyahay qorshayaal badan Dr. Abiy Ahmed uu doonayo inuu qorshayaal magac taariikh iyo waliba sidoo kale maamuus leh kaga tago Geeska Afrika balse Tigray ayaa gabi ahaanba sortaagay caqabadna ku noqday hanka siyaasadeed ee Dr. Abiy Ahmed kadirka cusub ee waqtiga ku soo biiray hoggaanka Geeska Afrika iyo waliba tan Itoobiya